بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ قالية كسو دوادا باللغة بوغ لبعض إنجليش كي كاسما أكاديمي أو نقول دونا بوغ بيجنركا وحنوغ هوري بوغن كي ها ليفل 0 أما ها بوغي أساسي ها أن كسو برانا ألفابيتكا سيد الله قرو سيد الله قد واقو وحي هلا سؤالا. أوكي maanta waxaan cashirkeena wuxuu ku saabsan waa maxay our house our house our house oo ah gurigeena ama gurigeena waxaan ka hadlaynaa maxay gurigeena khaasatan waa maxay my room my room waa qolkayga room waa qol myna waa shayga lagu leedahay house waa guri awarna waa maxay waxaa guri badan oo dad ay isla leeyihiin oo dadu ka mid tahay. Okay waxaan ku bilaabaynaa qaybtan hadalka waa speakingka which like we speak. Number 1, describe the house using this is. Describe the house using this is. Sifee guriga adigoo isticmaalaya ereygan ah ama tilmaamtan ah oo ah this is kani waa. Okay aan u gudubno aan eegno si loo isticmaalo marka tilmaamtan. Alright, a bedroom, my room, a bathroom, another bedroom, a toilet, kitchen, a living room. Okay, so markaan isticmaalayno this is sidee baan u sifayn karnaa anagoo isticmaalayno this is erayadan ama maxaad aan guriga u sifayn karayna anagoo isticmaalayno erayada this. Okay, number 1 waxaan oran karnaa this is a bedroom. This is a bedroom. xagga banaanba waxaan ku bixin karnaa bedroom. Number 2, this is my room. This is my room. Number 1 waxay ahayd bedroom maxay waa qol jiif sama. Okay, my room wuxuu noqonayaa maxay qolkayga. Bathroom waa suuliga. Bedroom waa kiyo kaleeto. Marka guriga markaa generally guriga wuxuu leeyahay dhowr qolo, hurda, dhowr xamaam iyo kitchen iyo qolkii fadhiga soo ma. Okay, a toilet waa idan waa xamaamkii kale. Kitchen waa kitchadii ama xagga lagu karsanayo cuntada. Living room a living room wuxuu noqonayaa qolka fadhiga ama meesha ay dadka fadhiistaan. Alright, so waxaan isticmaalayna waa maxay this is. Okay, mid walba waxaan kaa doonay inaad tilmaanto this is macnaheedu waa maxay marka hore. waa kani waa shay singular ama xabad kaliya oo ku dhow. Okay, markaad qolkaaga ama gurigaaga picturekiisa saad u aragto gurigaaga sawirkiisa ku saa kugu sawir yahay oo leedahay kaasi waa qolkii jiifka. This is a bedroom. Kan waa qolkayga. This is my room. Kan waa xamaamkii. This is a bathroom. haddana waan kusoo celinay this is a bedroom. waa maxay waa qolkii jiifka kale. Okay, this is a toilet. waa xamaamkii kale. And this is a kitchen. waa kushiinkii ama meesha kitchenkii wax lagu karinayay. And a living room waa area dadku ay fadhiisanayeen oo usually waxa yaala TV-ga iyo waxyaalahaas oo dhan. Okay, and this is our. This is our. This is kani waa maxay our. waxaa loo sameyn lahaa markaad u jeedo ama aad sameynayso ama aad leedahay shaygan annagaa leh adiga iyo saaxiibka ama adiga iyo qoyskaaga ama adiga iyo qof kaloo kula socda yani. Okay, our kani waa our waxayni maxaad gelin kartaa xaggan our living room waa qolkeenii jiifka. waa our living room qolkeenii hurdada.
Okay, kani waa qolkaygii fadhiga, living room, qolkeeni fadhiga. These are, these are, these are, these are, these are, kuwani waa, kuwani waa. Okay, this is wuxuu ahaa hal shay keliya soo ma. These are markaad ashyaa badan tilmaamayso waxaad isticmaalaysaa these are aad isticmaalaysaa oo u dhiganta waa maxay markaad ka hadlayso ashyaa fara badan. Okay, waxaad oran kartaa these are our chairs, these are our chairs. Okay, kuwani waa kuraastayadii. Okay, saa qolka fadhiga maxaa yaala kuraas soo maaha. Okay, that's it. Alright, waxaad kaloo oran kartaa these are our rooms. Waxaan waa qolalkaygii oo dhan. 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 of them. Okay, waxaan waa maxay waa qolalkaygii nagala. Okay, aanu gudubno aan specific. Hadda waxaan ka jawaabaynaa su'aalahan aan waxaa ka jawaabaya adigu naftaada uga jawaab ama qof saaxiibka ay weydiiya ama qof kugu dhow. Alright, answer these questions. Adigana isweydii oo ka jawaab. Qof kugu dhow ama saaxiibka ood garanaysana weydii. Okay, is your house big? Is your house big? Okay, oo noqonaysa gurigiinu miyuu weyn yahay? Gurigiinu miyuu weyn yahay? Is your living room comfortable? Is your living room comfortable? qolkiina fadhiga ma mid yani aad raaxa dareemayso markaad joogto relaxing ama maxay like lagu nastaa ama meel nasasho badan. Alright, is your kitchen large or small? Is your kitchen large or small? Kitchenkiina miyuu weyn yahay misuu yar yahay? Have you got 2 or 3 bedrooms in your house? Have you got 2 or 3 bedrooms in your house? Ma leedihiin waxaad leedihiin 2 ama 3 hurdo ama qol oo la seexdo oo loogu talagalay jiifka gurigiina miyay ku yaalan? Ma 2 aad leedihiin mise 3? keeba leedihiin? Is your bathroom large? Is your bathroom large? Xamaamkiinu ma aad buu u weyn yahay mise miyuu weyn yahay? Okay, well, ask each other questions about your houses. Use the questions in the exercise. Alright, marka waxaan idinku dhiirigelinay groupkiina intiin groupka inaad isweydiisaan su'aalahan qof walbana uu isku dayo inuu uga jawaabo qof kale insha Allah. Okay, teeda labaad waxaan ka doonayaa qof walba inuu sameeyo describe your house. Describe your house. waa inaad sifaysaa gurigaaga adigoo isticmaalaya ereyadii aan soo barnay oo ahaa a bedroom, a living room, a bathroom, a kitchen, a toilet, comfortable, large and small. Okay, waxaa soo baratay guriga waxyaalo ku koobnaa. waxaan kaloo soo barnay ereyo kale loo isticmaalo oo lagu sifeeyo yani qolalka ama guriga koobuu ka kooban yahay. Okay, oo ka mid yihiin comfortable, meel nasasho badan ama meel raaxo badan, large, aad u ballaaran, small, yar. Okay, so waxaan doonayaa inaad gurigiina sifayso. Describe your house. Sifee gurigaaga. Okay, waxaad oran kartaa for example, my house has 5 bedrooms. My house has 5 bedrooms. Our living room is small. Our living room is small. Our bathroom is large. Our bathroom
is large. Our kitchen is comfortable. Our kitchen is comfortable. Okay, waxaan kaa doonaya example si kale isticmaasho adigoo sifeynaya gurigiina insha allah.